wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan ahna gudoomiyaha gudida dhismaha wadada Ceeri Gaabo iyo waliba xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland alwadeennada hay'adda horumarinta wadooyinka Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan ayaa maanta waxay si rasmi ah ula wareegeen qalab gaadiid oo loogu talagalay dhismaha wadada Ceeri Gaabo isla markaasina ay xukuumadda Soomaaliland ka soo dejisay dalka dibadiisa qalabkaasi oo ka soo degay dalka aynu dariska nahay ee Djibouti abaarashantii iyo galabnimo ee maanta waxay kula wareegeen deegaanka Kalabeed oo ka tirsan gobolkani Gabiley wasiirka wasaaradda madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan ahna gudoomiyaha gudida dhismaha wadada Ceeri Gaabo oo ugu horeyn ka warbixiyay qalabkani ayaa waxa uu yiri inoo suurtageliyay nimadii madaxweynaha in qalabkii inoo yimi hortiisa inoo timi qalabka sidii uu maareeyo sheegay dhowr iyo 10 shay baa hadda joogo oo yaala waxna way soo socdaan sidoo kale waa fayska koobaad intii loogu talagalay ee wadada oo ahayd qalabkii hadeeyeen cagafyadii iyo hadeeyeen iska rogooyinkii iyo hadeeyeen booyadii biya qaadayay iyo hadeeyeen ruglayadii waxa weeye garaacayay intiiba bulldozer-iskii qodayay intiiba waxa weeyaan way marayaan labada cagaf ee soo socda iyo containerka spare park iyo ay ku jiraan mobile asphalt plan-ka oo loogu talagalay mobile asphalt plan-ku waa ta isku qasaysa diyaarinaysa jeega iyo daamirka diyaarinaysa qof kasto muwaadin oo ballan qaadayna waxaanu ka codsanaynaa ballantiisa oo fiyo runtii haddii madaxweynaha iyo dawladdiisu ay ballan qaadeen wadada Ceeri Gaabo oo uu dhagax dhigay ma aanan beerin qalabkii waa kan hadaanu ni qalab u soo socda hadaanu ni dhaqaalaanu bixinayna miisaaniyadda yada ka eega ninka been sheegaya daraadkiisa la waaya hadaanu niri bulshadaanu lacag ka gurayna wixii aanu ka guray noogu deeqday habeen dambe markaanu soo bandhigayno ayaa loo wada joogaa insha Allah ta'ala hadaanu niri waanu bilaabayna labada wiiga soo socdaanu bilaabaynaa yey ka maqnaan insha Allah ta'ala ka daalimayno inaanu waddankeega horumarino ka daalimayno tacabka aanu wadooyinka ugu jiro ka daalimayno waxna noo dhimayso iyaga wax isu dhimayaan inta wax ka sheegta waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin ah oo waddankiisa jecel maanta inuu ku farxayo sidoo kale gudida dhismaha wadada Ceeri Gaabo iyo maareeyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa iyadoo maanta munaasabadani aanu ugu dabaaldegayno runtii qalabkii ugu horeeyay ee RDA wakaaladda horumarinta wadooyinka la soo degtay qalabkaas wuxuu ka kooban yahay saababkiisaan 4 baabuur oo waaweyn oo kuwa carrada qaada ah 2 grader nooca loo yaqaano 2 sheewal oo kuwa ciidda raraa 1 bulldozer booyad iyo bahalka lagu xambaaro baabuurta oo la yiraahdo abraar oo ka agtiga taagana waa wajigii koowaad weeyaan gabadha bala waxa weeye runtii maanta u taaganahay Siraayo Axmed Siraayo maradu dhexda ku xidhay guntigii uu dhexda ku adkaysay ilaahayna wuxuu ka bariyay in ilaahaygii weynaa waaxidaha soo gaarsiiyo jaaniska uu gaarsiiyo dadku xaq bay u leeyahay waxay noo dhiibaan inay nagula xisaabtamaan laakiin aan ognahay inaanu shilin weli noo dhiibin inuu yidhaahdo waxbaa wadadii laga baray waxa weeyaan waa nasiib darro weyn maanta waa maalin taariikhda Soomaaliland daal dahab ka gelisay waxaan maanta hal ku tiraa quuta ku quuso qoladii mucaaridka xisbiga jeel magnuuka ku jiray maanta arkaan inay runtii tahay Soomaaliland waxa shirkeedu waana la ismarnaa ilaa sidaad baa la yiri oo dagaalka maanta soo gal wuxuu yiri ma kari karo buuqa hanu muuqde dagaalka kaalay naagtayna uu haba dagaalamayna markaasuu ayay kolkii isla galay inuu yiri walaal gala oo sameeyay eeg markaasuu wayla tolkay ma barto tolkay ma barto si kastaba qalabkaasi ayaa wax ka tari doona dhismaha wadada Ceeri Gaabo iyo dhamaanba dhismayaasha wadooyinka Soomaaliland waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Juba Samsa TV magaalada Gabiley